marti sharaf iyo haweenka cuqaasha iyo madax dhaqameedka ee saxaafadaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan aniga oo runtii sharaf weyn ay tahay inaan maanta mar labaad halkan aan kala qayb galo munaasabada tan aadka u quruxda badan ee xil wareejinta ah oo goobjoog ka ahaa maalintii uu la wareegayay gudoomiyaha maanta xilka wareejinaya maxamed abiib runtii sharaf weyn bay tahay maalintaasi iyo maanta aniga waxaan ii tahay laba qiimo oo kala duwan maalinta xil wareejinta aan joognay degmadan waxaan la wareegnay oo gudoomiyuhu la wareegay degmadan oo ay maanta ka muuqato horumar ka badan horumarkii hore waxaan leeyahay wuu ku amaanan yahay wuxuu muujiyay waa hoggaanimo wuxuu muujiyay waa aaminaad la aaminay oo ka soo baxay mas'uuliyadeedii waxaan leeyahay ku sharfo inta waxayna mustaqbal wanaagsan iyo meel ka sareysan oo rajaynayna degmada Faraweyne ku noqon maayo taariikhday leedahay xildhibaanka dhameeyay cid ay matasho iyo bulshada ka soo jeedo bay ka muuqanaysaa horumarkeedii dib u dhaceeduba muddada kooban ee uu joogay gudoomiye maxamed abiib waxaan ka mid ahaa dadkii sida xoogga ah la soo shaqeeyay xilli wal iyo goob wal oo lagu yeedhnaba runtii waxaan qirayaa inuu noo imanayay tala iyo fikir iyo qorshe kasta oo loo yimaadana wuxuu ahaa nin dhaga fudud oo qaadanaya oo qaatay oo ay maanta ka muuqato degmada muddada uu degmada joogay waxa uu qabsoomay oo ku amaanayaa oo ku sharfan yahay wuxuu dhisay oo maanta dhismihiisa socda oo dadaalka ugu badan uu geliyay in ay degmada Faraweyne hesho saldhig booliis oo weyn oo degmadan matala oo ay gali karaan inta uu taliyaha taliye-ku noo sheegay dhismuhu maxaabiis fara badan iyo ciidan badan waxa kale oo qabto soo iibiyo idin muuqata cagafta halka taala ee aadka u weyn oo lacagtii cashuurtii degmadan lahayd oo ilaaliyay oo u badbaadiyay oo soo goysayna cagaftaasi degmadu yeelato oo maanta ay wax walba ku qabsan karaan taana waan ku sharfayaa waan ku amaanayaa waxa kale oo uu dhisay oo runtii isbitaalka Hargeysa wasaaradda caafimaadka ka dul qaaday inay degmada Faraweyne ay hesho adeeg bixin caafimaad oo ku filan degmada Faraweyne goob wal oo tagtaanba waxa ka shaqeynaya halwadana caafimaad hala kaashida wasaaradda caafimaadka hala kaashida hay'adaha kale ee khusayso maanta degmada waxa haysataa adeeg bixiyaal caafimaad goobo shaqeeya sharaf badan buu ku leeyahay waa ku amaanaynaa wuxuu kor u qaaday runtii rajo abuurka bulshada degmada degan inay noqoto bulsho isku tashata oo qaada inay gacanteeda wax ku qabsato taasina waa mid ka mid ah qorshayaasha horumarineed ee ka xisbahaan ee ka xukuumad ahaan baanu aaminsanahay in isku tashigu ka bilaabo degmooyinka iyo goboladaba wuxuu ilaaliyay sidaa soo sheegay oo idinkaba aad markhaati ka tihiin inta uu degmada joogayna uu soo kordheen gaadiid cagaftaasi uu soo kordhay dhismayaashaasi uu soo socdaan ciidankii booliiska u dambeeyay degmada ka howlgelayay oo sodomeeyo ku dhowna uu taliyaha ku wareejiyay taana waxa la shacabka lagu tumo wadadaal waxaan ku sagootiyayaa inuu muujiyo hogaamin wanaagsan waxaan ku sagootiyayaa inuu badbaadiyay amaanadii loo dhiibay oo iyadoo sharfan ku soo celiyay bulshada iyo degmadu ka soo jeeday waxaan leeyahay shacabka loo tumo waxaan u rajaynayaa xilka sareeya xilka maanta mas'uuliyadda lagu tijaabiyay waa nin dhalinyaro ah anaga sharaf gaar ah inoo tahay qof dhalinyaro oo xilkii loo dhiibay amaanada ka soo baxa oo aan dhexda u galay wixii loo dhiibay sharaf weyn bay noo tahay ka dhalinyaro ahaan waxaanu ka mid noqon doonaa dadkan ku darsan doono dadkan ku xisaabtano ugu dambayn maalintii hore ducaan u dirayo maantana hambaliyaan leeyahayo qofku markuu wax qabta loo hambaliyo hambaliyaan raacinaya sagooti wanaagsan gudoomiyaha cusub waan u ducaynayaa waxaan ugu ducaynayaa xilka iyo mas'uuliyadda iyo waajibaadka la saaray ee degmada ballaaran ee horumarku ka socdo inuu Ilaahay ku asturo waxaan ugu ducaynayaa inuu Ilaahay waafajiyo astaamaha ay leedahay hogaaminta wanaagsan oo san u tahay isku wadid bulsho iyo ilaalinta bulshadan xuquuqdeeda gaarka ah inay noqoto mid ku dhisan wax wada lahaansho iyo wada tashi sharaf weyn bay runtii labaad noo tahay xabeero dhawo TV-ga waxa ka arkay degmooyin tuulooyin cabanaya maamuladu way isbedeladu way dhacaan sunaha dawladnimada ka mid tahay in wax la bedelo wixii isbedelay iyo dadka cabanayana maamulka cusub ee degmada
waxaanu garab u nahay inaanu la xalino inaanu isku soo jiidno inaanu ku qancino inay la shaqeeyaan gudoomiyahooda cusub goor gaaban hadalkeed gaaban aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu